السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sorry saaxiibayaal, cashirkan waxaan ku baran doonaa sideen ugu beeri karaa Clickbank akoon, sideen u samaysan karaa. Runtii Clickbank hadaan marka koowaad iyo mar labaad mar saddexaad waan kusoo celsho, Clickbank kuma shaqeeyo akoon Soomaali. Hadaa rabto inaad kambanigan ama bangigan yani platformkan Clickbank aad ka shaqaysto suuqan, waxaa u baahan tahay qof yani ama America joogo ama Europe joogo oo qaraabadaada ama familkaaga ah, inaad xogtaada u gudbiso ama aad tiraahdo shuruudahan ku tusi doonaa, intaas aad u gudbiso aad ku tiraahdaa yani akoon iga soo samey, kadibna Gmail ii soo diri passwordkiisa ama username-ka iyo mataqaanaa passwordkiisa ii soo dir, sidaas aad ku isticmaasho. Laakiin waxaan kaa fiirsanaa akoonkan ama platformkan kuma shaqeeyo wax loo yaqaano Soomaali furayaasheeda iyo adreskeeda dhan ma aqoonsano. Marka haddii aad rabto inaad ku biirto, markii aad ku biirayso waxaad samayn doontaa intaanaad diyaarsan doontaa. Kow, qofka wadanka uu joogo inaad kuu soo diro ama ogaato. Laba, qof qaraabadaada ah inaad la hadasho oo tiraahdo intaan maxaa yeelay qof maanta xogtan ku ogolaanayo ma jira ilaa qof yani qaraabo aad tihiin ama famil tihiin ama waalidku ama walaalku ah yaa intaan ku ogolaan kara. Marka intaas samee, wax culusna maahan, yani wax aad iskaga fudud waa. Marka ugu horeyso waxaad weydiisan doontaa wadankii mataqaanaa uu joogo, gobolka uu kasoo joogo kusoo diri doonaa. Sidoo kale cityda ama caasimadda markaas meesha uu ka joogo ayuu kusoo diri doonaa, adreskiisa uu joogo iyo zip code iyo phone number. Intaana weydiisanaysa oo kaliya kadibna adaa samaysan kara. Xataa waxaa la sameeyaa VPN aad daaranaysaa. VPN markaad daarato waxaa samayn doontaa, waxaa ka dooran doontaa yani wadanka markaas asaga uu joogo. Tusaale ahaan haddii Maraykan uu joogo, VPN ka waxaa saaranaysaa Maraykan, kadibna xogtan uu kusoo diro ayaa ku buuxin doontaa. Wax simple ah waa. Sidee loogu biiraa? Haddii aad intaan nimaadno, hadda platformka waa kana horta Clickbank waa bangigan, waa platformkan aragto. Haddii aan hoos u soconno, meesha waxaad ku arkaysaa in over 190 countries inuu ka shaqeeyo, over 25 years oo ilaa 25 sano ka badan ayuu yani kambanigan shaqeynayaa. Over 6.2 billion paid waa lacagta dhex marta transactionkiisa waa inta. Marka waxyaalaha cajiibka waxay kamid tahay yani intaan oo maalintii aad dhex marayso, intaan oo lacag markay dhex marto, yani waad dareemi kartaa waxyaalaha is dhex marsanaa affiliate marketing inay aad qaali u tahay. Markii intaas macluumaad aan ogaanay oo yani qofkii adreskiisii, macluumaadkiisii iyo xogtiisa aad kasoo hesho, waxaan u gudbi doonaa sideen ugu beeri karaa. Waxaan dhihi doonaa login. Markii aan login gareyno, hadda aniga login markaan dhahno, aniga hadda waxaa ii samaysan akoonkayga login kuma galaayo. Laakiin hadduusan ku samaysnayn because adiga waa ku cusub tahay, waxaad dhihi doontaa create an account for you. Halkan akoonka abuuro oo sign up ayaa kusoo bixin doonaa. Laakiin make sure hadda aniga VPN isticmaalo, wax VPN ah ima daarno. Haddii waxaa isticmaali kartaa VPN, free VPN isticmaali kartaa oo extension yani koodka lagu soo dejiyo. Waxaa isticmaali kartaa touch VPN isticmaali kartaa. Inta badan xogaa touchkana xoog leh inaad isticmaashaan isku day. Waayahay, sign up-ka markii sidaan ay imaado, meesha waxaa ka dooran doontaa qofkii wadanka uu joogo. Tusaale ahaan wadankiisa hadduu United States ah, United States ka dooro. Meeshaan muhiim ah inaad magaciisa geliso. Magacaaga xataa waa gelin kartaa, last name iyo first name. Laakiin tanaa muhiim ah. Meeshaan telephone numberkiisa ay gelin doontaa. Meeshaan waxaa gelin doontaa email address markaas. Laakiin email address-ka waxaan kugu talin lahaa in uu kuu sameeyo email address adig kuu khaas ah. Macnaha inuu email address kuu sameeyo, passwordkiisa wixiisan uu kusoo diro. Hadhow waxaa jiro productyaal CPA-dooda iyo waxyaalaha qaar lagu weydiin doono in Gmail-kaaga la hubiyo. Marka qofkaas yani qofkaa maqan maadaama uu yahay, kuma suurtageli doonta yani in markasta Gmail-kiisa inaad wacdo aad tiraahdo Gmail-kii iga jawaab. Waxyaalahaas dhan xogaa caqabad ay kugu noqonayaan. Marka waxaad samaysaa in Gmail-ka markastaba adiga aad samaysto, kadibna asaga u dirto haddii uu kusoo sameynayo, ama adiga macluumaadka uu kusoo diro. Haddii VPN aad isticmaalayso, Gmail-ka adaa haystaba, taasna waa okay. Laakiin dadka qaar waxay sameeyaan inay yiraahdaan ii soo sameey asaga qofka u diraan, qofkaas familka xagga jir u diraan.
يعني markii usoo sameeyna gmail asaga uu leeyahay ugu sameynaa hadhow gmail ku bahdaana barbaleen ay ka noqon marka taasna ka taxadara yani gmailka adina haysto isku day kadib markaa gmailka meeshaan geliso inta waxaa gelin doontaa password adag passwordka waxaa lagu leeyahay meeshaan fiiri karaktara adaga laga rabaa lower case xarfay yar ilaa 2 laga rabaa upper case waxaa laga rabaa ilaa 2 lambar at least 2 lambar waa inay ku jiraan tusaale maxaa laga wadaa haddii meeshaan click siiyo waa inay ku jirto 2 waa inay ku jirto 2 oo yar hadana xarfay yar inay ku jiraan waa inay 2 tir ku jirto at waa in laga heli karaa intaan lagaga baahan marka adiga soo samaysanaysa passwordka ay yaqaano laakiin shuruudaha waa inay intaana tig saartaa kadib waxaa dhihi doontaa meeshaan jibta saar doontaa I have read and agree the terms and condition tig saar tigkad ma saarmayso sababta waxaa waaye continue terms and condition waa inaad ku dhufataa kligaa siin doontaa sidaan kugu furmi doonaa markaa kadib ku laabo waxaa arkaysaa terms and condition in loo saaray kadib waxaa dhihi doontaa create account maasha allah markaas accountka uu ku samaysmi doonaa username iyo passwordkeena isticmaali doonaa markii accountka uu ku samaysmo halkaan imaa click bank sida hadda u soo galayna caadiga hal link ugu horeeya ku dhufo markaad kasi waxaa leedahay login okay ana hadda gmailkii marka waa qarin doonaa because waa xog private ah xogtada private inaad yani dadka la wadaagto xogaa qanuuniyan ma wanaagsano marka xogta waa qarinaa gmailkeygii passwordkii hadda soo samaystay le inta waxaa gelin doontaa gmailka soo samaystay inta waxaa gelin doontaa passwordka hadda soo samaystay kadibna waxaa dhihi doontaa login okay markii aad login tiraahdo sidaan kuu soo bixi doonta marka platformka click bank waa kana waa noo samaysan yahay laakiin waxaa kasii dhiman agow lacagtii markii yani akoonkii lagugu diri lahaa ku xiran akoonkii inaan ku xirno ayaa noo dhiman laakiin click bank hadda waxaan sameynay inaan iska soo diwaan gelino waa ku guuleysan waxaa noo dhiman inaan account istagno account nickname wax la yidhaahda samaysano casharka dambe ayaan ku baran doonaa laakiin hadda si guud click bank sidaan ugu soo biirtay waxay hadda ka dambeeyaan yani passwordkaas iyo gmailkaas kusoo geli doontaa casharadaada si taxana ah mataqaanaa daawo isku day inaad mid kasta mid ka dambeeya fahanto aad haddii inta aad soo gaarto mar waa ku biirtay kaliya waxaa noo dhiman haddina account sameyno yani kadibna aan qofkii macluumaadkiisii oo dhammaystiran aan ku buuxino ayaa noo dhiman intaasna waxaan ku buuxin doonaa yani aan ku sheegi doonaa cashirka soo socda. Assalaamu calaykum.